heshiis qayb weyn uu ka yahay helidda diyaarado dagaal ay Soomaaliya iyo Pakistan waxay ku wada gaareen caasimadda dalkaas ee Islamabad wadahadalla Soomaaliya ay ku rabtay inay ku hesho 24 diyaaradood ayay Pakistan waxay la lahayd ilaa iyo dhamaadkii sanadkii tagay ee 2025 ka hor inta 4 bishan caasimadda Islamabad aysan ku wada sixin wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya iyo dhigiisa Pakistan diyaaradahan oo nuucoodu uu yahay JF-17 waxay yihiin mid ka mid ah diyaaradaha casriga ah oo xilligan la isticmaalo waxayna Soomaaliya ay ku helaysaa lacag lagu sheegay 900 milyan oo la tilmaamay inay bixinayso dawladda Sacuudiga oo dhigeeda heshiis difaac kula jirta Soomaaliya waa mid ka mid ah heshiisyadii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ay la gasho dal kale ayna ku helayso diyaarado dagaal tan iyo markii meesha ay ka baxday dawladdii dhexe ee madaxweynaha uu ka ahaa Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsiin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga